madaxweynaha Ruushka ayaa go'aansaday in ciidamo gaadhaya ilaa 300,000 oo dagaalyahan la heegan geliyo ayaa geesta kalena warbaahinta reer galbeedka oo soo xiganaysa ila wareediyo waxay sheegeen in laba diyaaradood oo ay ka leeyihiin madaxda Mareykanka iyo Ruushka safaro hoose oo badan ay sameeyeen iyadoo ay jirto cabsi laga qabo inay dhaqdhaqaaqyadani u horseedaan dagaal nukliyeer oo caalamka ka qarxa. Diyaaradaha loo yaqaano Doomsday Plane oo macnahaan ah diyaaradda qiyaamaha ayaa waxa magacaas la baxday maadaama ay leedahay xarun istiraatiijiyadeed oo ku dhex taala diyaaraddan taasoo u heelan in laga amro ciidamada militariga haddii ay dhacdo dagaal nukliyeer ah ama kuwa hubka sunta iyo shucaaca la isku adeegsado ee keeni kara in dhammaan xarumaha taliska ee muhiimka ah ee howlgalka iyo garoomada diyaaraduhu ay joogsadaan ayaa haddana diyaaraddan sida la sheegay waxay hawada ku jiri kartaa muddo 2 toddobaad ah. Buuriga diyaaraddan ayaa sidoo kale u samaysan inuu ka difaaco hubabka madaxweynaha iyo rakaabka kale ee saaran maadaama ay iska difaaci karto xajmi huba oo aad u culus. Diyaaradda Ruushka ee loo yaqaano Kremlin Flyer ama aqalka Kremlinka ee duula ayaa lagu arkay hawada sare ee caasimadda Moscow dhawaan taasoo ah fariin digniin ah oo ka timi madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ah inuu qorsheynayo inuu rido dagaal nukliyeer ah tano haddii ay dhacdo u horseedi karta dunida in khasaare ba'an u soo gaaro. Diyaaraddan lagu magacaabo Doomsday ee madaxtooyadu leedahay ayaa la arkay iyada oo dul maraysay duleedka magaalada Moscow iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabo in madaxweyne Putin uu taabto batoonka isla markaana uu furo dagaalka nukliyeerka quwadaha adduunka. walwalka ay qabaan reer galbeedka ayaa ah in diyaaraddan aan la arkin tan iyo xilligii Soofiyeedka isla markaana dadka qaar sheegayaan in soo laabashada diyaaraddan ay hadda fariin u tahay in madaxweynaha Ruushka Putin uu doonayo inuu digniin u diro reer galbeedka. Bishii May ee sanadkii la soo dhaafay 2020 laba bilood kadib markii Ruushku ku duulay Ukraine ayaa diyaaradda Ruushku waxay duushay iyadoo ay la socdaan laba diyaaradood oo nooca dagaalka ee nooca loo yaqaano MiG-29 xilligaas ay ku duulaysay joog hoose magaalada kaniisadda ee Basilis ee magaalada Moscow. Duulimaadka iyo dhawlatusyada diyaaraddaas lagu magacaabo qiyaamaha ee Ruushka ayaa timid kadib markii hanjabaado dhowr ah oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ku sheegay inuusan ka hakan doonin isticmaalka hubka nukliyeerka balse uu adeegsan doono haddii loo baahdo. Telefishinka qaranka ee ku hadla afka xukuumadda ayaa horey uga digay in dagaalka saddexaad ee adduunku uu dhici karo haddii Mareykanka iyo reer galbeedku ay sii wadaan xiisadaha ay abuurayaan isagoo intaasi ku daray dhammaanteen inaan wada dhiman doono maalintaasi. haddii uu dhaco dagaalka nukliyeerka waxaa jira laba dawladood oo kaliya Mareykanka iyo Ruushka kuwaas awood u leh inay diyaarad ku qaataan oo hawada ku sii hayaan madaxtooyada iyo saraakiisha muhiimka ah ee militariga si aysan waxyeelo u soo gaarin baalaydi iyagoo ugu talagalay inay sidaas ku xakameeyaan xaaladda. Mareykanka ayaa diyaaradda Boeing B4 u isticmaala diyaaradda hawlaha degdega ah ee la xiriira madaxtooyada halka Ruushku uu isticmaalo diyaaradda gudaha dalkiisa lagu sameeyo ee Ilyushin 280 arrimahaasi sida lagu baahiyay warbixin uu soo saaray wargeyska Interest Engineer. Wargeyskan waxa uu sheegay in diyaaradda qiyaamaha lagu magacaabo ee Ruushku ay Putin u ogolaan doonto inuu sii maamulo dalkaasi inta uu socdo dagaalka nukliyeerka maadaama uu awood u yeelan doono inuu ku amro ciidankiisa inay duqeymo nukliyeer ah ka fuliyaan taliska hawada sida lagu sheegay warbixin uu qoray wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa dalka Ingiriiska. Madaxweyne Putin ayaa la rumaysan yahay inuu haysto 4 xabbo oo ka mid ah diyaaradaha qiyaamaha lagu magacaabo waxaana diyaaradda Ruushka ee 280 ee madaxtooyada guurta loogu talagalay inay u shaqeyso sida aqalka Kremlinka haddii uu dhaco weerarka nukliyeerka si loo hubiyo baalayri badqabka madaxweyne Putin isla markaana uu ka badbaado weeraradaas ama gantaalada nukliyeerka ee la beegsanayo xaruntiisa. Diyaaraddan ayaa leh 2 matoor oo u adkeysan kara qaraxyada nukliyeerka sida laga soo xigtay warbixinada Ruushka. diyaaradda Ilyushin 280 ayaa markii ugu horeysay soo baxday sanadkii 1985 intii uusan burburin midowgii Sofiyeeti waxayna hawlgalkeedu si toos ah u bilaabmay 1987 kadib markii hawlo badan oo dib u habeyn lagu sameeyay. Waxayse warbaahinta reer galbeedku ogaatay in diyaaraddan uu Ruushku samaystay sanadkii 1992 markaas oo ahayd xilligii loo qorsheynayay in diyaaraddan ay si toos ah u soo gasho adeegga ciidan. Diyaaradda Ilyushin nooca 280 waxay si weyn uga duwan tahay diyaaradaha ganacsiga ee la soo saaray ee nooca Ilyushin 286. Magaca diyaaraddan loo yaqaano waa Maxdome halka qaar kalena ay u yaqaanaan Comber waana naanays ay u adeegsadaan
shirkadaha duulista ee soo saara diyaaraddan, waana naanaysi ay u adeegsato shirkadda duulista ee soo saartay diyaaraddan. Maxadome waxay kaga duwan tahay diyaaradaha kale ee ganacsiga in daaqadaha qolalka aan la arki karin oo wada yihiin kuwa leh beersool, islamarkaana qolka maamulka ayaa ah kuwa aad u adag oo ay ku xidhan yihiin muraayado proof ah. waxaana sidaa loogu sameeyey si looga ilaaliyo baalayri dadka iyo madaxda raacaya diyaaraddan inay ka difaacdo khataraha uga imaan kara shucaaca elektarooniga ah ee EMP loo sagaabiyo ama qaraxyada nukliyeerka. diyaaraddan ayaa shidaal ku qaadan karta hawada dhexdeeda, sida lagu sheegay warbixin uu qoray wargeyska Eurasia. qalabka isgaadhsiinta ee satellite-ka ayaa diyaaraddan waxay kaga rakiban yihiin xagga sare, sidoo kalena waxaad arki kartaa anteenooyinka waaweyn ee xagga dambe kaga yaala diyaaraddan ama kaga rakiban. marka la barbar dhigo diyaaraddan tan dhiggeeda ee Mareykanka waxaa lagu magacaabaa Night Watch, waxaana diyaaraddan oo ay soo saartay shirkadda Boeing 10 sano ay ka dambeysay diyaaradda Ruushka ee Maxadome, iyadoo qiimaha ay ku kacdayna uu gaadhayay $223 milyan oo dollar. waxayna diyaaradda Mareykanku ay leedahay daaqado proof ah kuwaasoo la sheegay inaysan karin gantaalaha qaarkood. waxaa kaloo aad loo ilaaliyaa qalabkeeda iyo fiilooyinka ku xidhan. diyaaraddan oo ka kooban 3 dabaq ayaa waxa ay leedahay xarun guud oo koronto, taasoo hoos u rida shucaaca nukliyeerka. shabakadda diyaaraddan ku rakiban ee isgaadhsiinta ayaa sidoo kale ah kuwa anteenooyinkoodu gaari karo ilaa 8 kilomitir, waxaanay shabakaddani qaadi kartaa 13 shabakadood oo isgaadhsiineed. halka diyaaradda Mareykanka ee lagu magacaabo Night Watch ay u baahan tahay in lagu lamaaniyo 2 diyaaradood oo nooca KC-135 si ay u raacaan shidaalna ugu shubaan. inkastoo diyaaraddan inta la og yahay ay duushay 35 saacadood ugu badnaan, waxayse hawada ku sii jiri kartaa ilaa 2 toddobaad oo xiriira. ruushka ayaa soo saaraya beddelka diyaaradda qiyaamaha, iyadoo ay jirto diyaarad uu leeyahay madaxweynaha ruushka ee nooca loo yaqaano Ilyushin 280 ayaa haddana lagu wadaa in lagu beddelo diyaaradda cusub ee Ilyushin 96, taasoo madaxweynaha ruushka u fududaynaysa howlo badan oo dhinaca dagaalka nukliyeerka ah. sanadkii horena waxaa la sheegay in dowladda ruushku ay samaynayso ilaa 2 diyaaradood oo cusub oo loogu magac daray qiyaamaha si ay u daabulaan hogaamiyaasha ugu sarreeya militariga iyo siyaasadda dalka haddii uu dhaco weerarka nukliyeerka. ilawareedyo ka tirsan warshadaha militariga ruushka ayaa sheegaya in qaybtii ugu horreysay ee diyaaradahan oo leh xarun maamul islamarkaana iyadoo hawada sare la marayo laga maamuli karo. waxaana diyaaraddan ku socda baalayri horumarin xooggan, balse lama oga wakhtiga ay si toos u howlgeli doonto. warar amni oo hoose oo laga helay laamaha kala duwan ayaa sheegaya in mid ka mid ah 4 diyaaradood ee Doomsday ee nooca Ilyushin 280 sanadkii 2020 la jabsaday oo la xaday xilli dib-u-habayn loogu sameynayay magaalada Tagarnog ee dalka Ruushka ee ku taalla badda Azov. waxaana la sheegay in 39 ka mid ah idaacadaha diyaaradda la xaday. qalabkan ayaa waxaa ku jiray qalab qaali ah oo ay ka midka yihiin dahab iyo weliba qalab kale oo qaali ah oo ku samaysnaa diyaaraddan, kuwaasi oo la filayo inay sabab noqon karaan waxa keenay in la xado. laamaha amniga ee dalka Ruushka ayaa sheegay in mid ka mid ah burcadii xaday diyaaraddan loo xidhay dhacdadaas foosha xun, balse wuxuu eedeysanahani oo darawal tagsiila ahaa sheegay in si been abuur ah loo eedeeyey uusan wax raad ah ku lahayn dembigaasi.